السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحابتي ذا يوتيوب كأد بندين وذا السلام يا ملك استدى الدنيا ذا كتشوك تامبا وأنا وحمد الشكرية وإذا كذا معنا سحمد الناتشرالز channel كيغا كسو دوادا أيان إذن ليه مرلبات إيا مرسدحات با maanta topic yar oo topicyadii aan horey uga hadli jiray iyo ama faa'iidooyinka aan horey u keeni jiray maaragtay ka duwan ayaan sameynayaa kaasoo ah ku saabsan gabadhii Soomaaliyeed ee laga yaabo hooyada inay ahayd laga yaabo inay xaas u ahaan jirtay ama ahaydba oo la oranayay deeqa iyo xadgudubkii lagu sameeyay xadgudubkii aynu Soomaali ahaan ku sameynay siiba ragga الله سبحانه وتعالى هرتا كون كان وضع أبوري ماركتي جري إيا دقح إيا ضد إيا ماركتي دنيا بأبوري هرتا مضل ميو وحبا بني آدم كانه وحقوق الدون صدا إلهي إنا يسان استولميين إسن حق دوران ملك استيجوغان إيا مركز طبع إيا الرسول كان نوحو يري ماركتي يتقوا الله حيثما كنت maaragtay meel kasta joogtaba alla ka baq marka waxaan la hadlayaa ragga intay soo maloogeen mara meel ku soo duuduubeen iyo qardaaso deeqa Soomaali magac kale ugu daro ma garanayo marka waa deeqa Soomaali inaan idhaahdo gabadhii Soomaaliyeed ee deeqa yiri maaragtay waxaan anagu afkayga soo marin karin ku sheegay inay tahay maaragtay dadka ما أركتي قف دمرة أو حدكي إلهي حدكي إسلامك إيو إلهي وحو ما أركتي أصاد دريبو جويسي أو كل شيء إني ما أركتي basically أي تاي خنيسد ناكلنا أي قبته وأعوذ بالله سبحان الله ملك القدوس اللهم تشينا إلهي هنجا ما أركتي نتشيو ديقو ما أي سنة هين خنيسد ديقو ناكل ما أي سنة قبين ديقو وحيا هيد قبل mentally xanuunsan deeqo waxay ahayd gabadh uu garanayo qofka sawirkeediba saa markaad u dheehatid oo ishu dhac ku siisidba inay tahay qof xanuunsan saqiirka laba jirka ayaa garan kara deeqa oo kala duwi kala differentiation ku sameyn kara ma aragtay wax ka dadka wax kala duwi kara maskaxda saliimka haystaay uu garanayaa laba jirna ha ahaade uu garanayaa inay deeqo qof xanuunsan tahay balse ragga Soomaalida oo soo xidhay tuutayaasha iyo uniformka feega uniformka feega iyo cid u aqoonsanay aysan jirin dadka soo xidhay jacayl ka gaaray maamul ahaan iyo meel aan nidaam ku jirin jajuubsanaya ilaan weligoodba nidaam ma aysan soo aragay oo aan garanaynin dambiga sida loo baaro aan garanaynin dambiga soo baaro dambi sida loo baaro iyo sida wax loo dabagalo iyo sida dabagal loo sameeyo iyo sida FBI CID police system sida u shaqeeyo ileen anaga iska burburinay marka sidaan ku ogaanaynaa marka dadka saasa gabadha muslimada ee xanuunsanaysa ee rafcu qalamkiiba laga kor qaaday liana gabadhaas inay xanuunsanayso halkaas ay ka caddahay dadkeediina way cadeeyeen qof kasto isha ku qabataana wuu garanayaa inay qof mentally ill oo mentally ahaan maskax ahaan u jiran ay tahay deeqo balse raggii Soomaaliyeed waxay isku raaceen oo shirka la soo istaageen oo media la soo istaageen saddex naagood bay qabtay saddex naagood rag oo idinka ku weyn uu awood waayay naag baadiye joogta oo jirana oo aan garanaynin baqoomaluudka idinku aad indirectly u faafinaysaan indirectly bay sababtoo ah u faafinayaan ragga Soomaalidu لأنه واحد سأوصل بندقين دمر كي ما تعتبر واي واحد أوصل بندقيان أو أوليهن دمر كي وحيسينا هيرس أب وحيسينا إندارج اللي بين تتكاس الرجاس وحي أوفافنا خنيس لماذا حمانتا لأن أرنكاس وكل حتى هدول عوائل لقصة ما أرمات دبقلة وإن سيدي بوليس عيدمات دبقل محاكمة عديمو فيديويال للي ماذا إن يديقوا وحاسمين سي deeqo intaad waxa dameerka kale ku soo rakibteen oo been oo soo daatraadeen saddex naagood bay qabtay bal saddex naagood ha qabtee saddex naagood oo maanta lagu qabo ma aragtay wax wuxuu yahay la garanayo madow oo maryo la isku duuduubaya iyo qardaaso
qofka lagu maanta lagu qabayaayo oo ay oranaysaa misna nin baan ku ahay war caqliga saliimka baa diidaya isku xishooda raggaasna baaqa aan u diraya waxa weeyaan inay is-aasaan ayagoo nool inay qoorta soo dhiibtaan oo dambigii ay galeen ay yiraahdeen waa haddii intaa in leego Soomaalinimo ku jirta waa haddii intaa in leego aabayaala yihiin waa haddii cididaa wax leeg oo dhiidhiya ku jiro bini aadan uu khaldamaa baan wali idin leeyahay ragga Soomaaliyeed oo saas soo sameeyo laan inaan jamac idin ka dhigo waxaa keenaysa oo ragga kelmadda ragga isticmaalo waxaa keenaysa caasho maxaa ku dhacay xagaysa ka dhaceen najma gabar kale maxaa ku dhacay farxiyo maxaa ku dhacay caasho maxaa ku dhacay million girls oo Soomaaliya ku nool oo wada kufsi dhaqan xumo ku wada dhaceen baynu soo joognaa oo media hala soo wada dhigay ragii Soomaalida oo iska dhiidhiin bal waxaad ogaataa oo ay gula yaabka badnayd ragii caasho sidii loo kaydi yeelay oo just 12 years old 9 years old bay ahay sidii loo kaydi yeelay maalinkii maxkamadda la saarayay qaarkood way qoslayeen actions bayna sameynayeen farahay taagtaagayeen peace and love bay qaar lahaayeen mogt because waxay og yihiin inuu xarigani yahay just inuu yahay propaganda iyo media la tustusayo hadhowna oday adeerkooda intuu cimaamad ku soo shubo lacag xaaraana in hadhow lagu soo dayn doono waraga Soomaaliyeed ilaahay ka cabsada oo dumarka Soomaalida u yeela sharaftii alla mudo ilaahay wuxuu yimi الرجال قوامون على النساء على marka la leeyahay waad ka sareysaa kelmadda calaa kor weeyaan waxa weeyaan qofkan dumarka waad ka sareysaa mas'uul baad ka tahay qawaam baad ka tahay marka dawr oo tixgeli oo xaq xataa waxay u leedahay qofka dumarka ay xaq waxay u leedahay islaamnimo hadaad garanaysaan weeyaan islaamnimo hadaad garanaysaan xuquuqda dumarku idinku leeyahay hadaad garanaysaan gabdhihiina xuquuqday leeyihiin hadaad garanaysaan dumar si loola noolaado ama gabadh loo barbaariyo laana nin gabadh si wanaagsan u soo barbaarin gabadh ma uu hayn karo ma guursan karo hooyana baari uma noqon karo walaalna warkeeda badaa dumarna intaas uu ka kooban yahay dumarka Soomaaliyeed la'aanteedna Soomaaliye ma aysan jirteen 30 iyo above sano oo aad ragow is cunayseen stiilna wali waad is cunaysaan kun iyo kow maamul gobol iyo balaayo aan la fahmi karin oo silsilada meelaha iskaga xidhan yihiin aan la garanayn baad samaysateen markaas gabdhihiina intii caqli maskiinka ahayd diraceedii iyo baatigeedii iyo shiidkeedii iyo dahabkeedii yaraa iyo fargashigeedii iyo shaqadii yarayd oo ay part-time ka soo shaqayso ilmaheeda dayacday aad ka gurataan intaad xalfada meel ku qabsataan iyo muusig iyo bidco iyo balaayo marka rago waxaan leeyahay alla ka cabsada intaan leedin rogin intaan cadaab gaar ah leedin samaysanin waad nasal garayseen intaad baawur naga buuxiseen sidii arigi dabaaxa ahaa ee la dhoofinayay sidii ari dekada berbera ama dekada boosaaso ka baxaya ayaad intaadna dhoofiseen ayaad Sacuudina geyseen oo tiraahdeen khadaamad ahaada ninka carabka ay horarkaana wuxuu doonahay idinku sameeyo basically noo saxeexdeen basically my 100% sure uu yahay aad noo saxeexdeen marka sharaf dhaca anagoo diiwaanka carabta uu noogu jiro inaan gabar Soomaali bal in la adoonsado oo la salgareeyo xoolo ahaan sidii finaamkii laga dhigo ma ogiye anagoo ayaad naga dhigteen anagoo diiwaanka carabta xataa aysan noogu jirin khadaamad inaan noqon karno mid ilaahay dambigiisa dhaafayna oo diiwaanka bari hore noo dajiyay laakiin waad burburiseen diiwaankii iyo Soomaali sharafta ilaahayna waad ku ciyaardeen ragga jooga hadda oo Soomaalidow waxaan leeyahay ilaahay haydin soo hanuuniyo waxaan leeyahay aad ban disappointed waxaan uga ahay ragga iyaga meel kasta ay joogaan walaa sheekh walaa shariif ambar iyo eedayn kale kuma soo doonin laakiin siday dumar Soomaaliyeed ula dhaqmayaan ee xumaanta cadcad kuwa badaha lagu sii deynayo maxay la tahriibayaan gabar Soomaaliyeed how come gabar Sacuudiyeed tahriibtay ma la arkay gabar Carabiyeed tahriibaysa wali ma la arkay kuwa Yemen ku nool ma soo tahriibaan kuwa Syria ku noolaa ee dagaalkeeno kale ka xun uu ku dhacayay ma soo tahriibaan laakiin iyadoo ninkeeda gacanta soo haysata ama wiilkeeda gacanta soo haysata bay soo tahriibtaan gabadha Soomaaliyeed maxaa afarta gorjo inay goyso ku khasbay waa nin Soomaaliya ninka Soomaaliga ayaa gabay maartay boosku lahaa ninka Soomaaliga gabay
ninka Soomaaliga inay gabar Soomaaliya ay 4-5 qaaradood iskaga goyso bilaa murxum bilaa ciisayn bilaa horgal nin Soomaaliya horgalaya ma jirto ilaa mid dambi ku horgalay ma ogiye bal iskaba dhaafay arrimaha u soo wada dhameynayaan dambi ku horgalay lacagtu ka qaadanaya tahriib buu leeyahay ka bad ya oo bilaayo dhan haad yahaan raawiya haran cadabi ku cunaya ya marka waxaan leeyahay taqallah ilaahay nooga baqa ragga Soomaalida gabdhihiina hooyooyinkiina ilaahay uga baqa kufsiga iyo xaaraanta joojiya xumaynta gabadha Soomaalida joojiya ya waxaan xasuustaa magaalo Soomaaliya kamid ah oo aan recently booqday oo aan joogay gabar Soomaaliya nin Soomaaliya ya oo dukaan isma yaqaan la dhaho isma yaqaan calaashan dukaankaasi intuu isku jiro how big that stories ya store-kaas oo malaysa 5 guri 6 guri oo la isku furay weeyaan ayuu wax ku ganacsanaya gabar baa keeriyoone uu mirad muusa iyo mirad liindanaana ay saaran yihiin iyo xabad camba ya bay dukaanka hortiisa soo dhigat markaasuu ciid ku daadiyaa ciid uu ku daadinaya oo leeyahay naaya iiga kac isaguna waa hobiyahudo line baa loogu jiraa line hobiyahudo baa wax looga gadanaya ya gabadhaasna qof xataa soo agmaraya ma jiro waan iskaga leexday murakara markaan arkay mirad moosana waan ka gatay subhanallah ninka afkiisa waxa ka dooganayay ya aad baan uga murugooday markaas gabadhu waxay leedahay caruur baan korsanaya suulee wixii naaya ka dhalay meeyo waa kugu soo fureene hadduu wixii ku dhalay ku soo fureen ama ay ka dhinteen markaas waxay leedahay qaxoontiga Yaman ka soo qaxay baanahay ya war cadaaladaasi waa maxay wax maxay tahay war dhiig iyo afka uu saaninka ku oran karay waa maxay waraga Soomaaliga kiwi gabdhaha intay raadiyaan sharfi jiray qoriga iyo geela iyo gabayada iyo heesaha iyo maamuuska u kala tirin jiray miyaysan ahayn maxay nooga qaadeen oo noo isticmaalayaan misna sidii shay cadawga la iskaga gudbo ayay rag hadda noo isticmaalayaan oo shay aad neceb tahay oo maartay wasaqda la iskaga dhigayo la isku tirtirayo ka bacdina la tuurayo ayaan ragga Soomaalida hadda u noqona ya awal hore laakiin waxaanu ahayn raggii hore ragga maartay gabadh rag isdilay iyo beelo isku martay ayaa ku kala gami jiray gabadh Soomaaliyeed sharaftay lahayd beelo iyo rag isku maray baa ku kala seexan jiray marka subhanallah adeerayaalo walaalayaalo ilmaadeerayaalo ragga Soomaaliyeedo dambigii aad samayseen ee adeeqa ku samayseen ee mucjisada ahaa wixii kale baa anigu waan arki jiray waan la yaabi jiray min subhanallah baan dhihi jiray laakiin wallahi kan gabadhan si xun buu idibay laana maxaa yeelay waa qof rafcu qalam ilaahay baa qofka waalan wuxuu ka dulqaaday qalamkiisii uu ku qorayay dunuubaha ya buu ka dulqaaday buu qofka waalan ka dulqaaday qof waalan oo at the same time ay ka muuqato athaartii cibaadadu ay ka muuqato gabadha cibaadadii baa ka muuqanaysa sujuudi baa ku taalo tusbax bay haysataa waxa laga yaabaa inay markii maaragtay ugu dambeysay xasuus ay salaad tukanayso salaadeediina wali ay wadato iyo tusbaxeedaas daruuf baa ka muuqata jirkeedoo dhani waa googo'an yahay war hadday 3 naagood qabtay ومن سبحان الله هذي 3 naagood qabtay maxay ugu baysan weyday maxay isku udgun weyday maxay dhar wanaagsan u xidhan weyday aqliga fudud leeyin kaga shibiye ragow kuwii soo xirayo kuwii tuutaha beenta iyo uniformta beenta watayo kuwii right at the point ku kala hadlayayo maxay isu hagaajin weyday ilaa wax qabaayo 3 qof subhanallah 3 naagood qabaayo u xidhoonayay ilaa dadka uma ekaan kare ya qof rago subhanallah I just wallahi hadalka way kala lumay speechless ya marka waxaan hadalkayga gunaanadka iyo gabagabadu waxa weeyaan oo aan meesha u soo fariistay intaan leedin rogin cadaabtiinuna aysan banaanka leedin ku cadaabin oo sidii fircoon ay idin noqonin wax adduunyada
shaahidoo yaalla rag Soomaaliyeed ha isdaba qabto oo duc kasta ha isku daba qabto oo weliba waxaan damiir xumada waxa kale oo dhan waa wax mayna raaye damiir xumadan iyo kufsiga noqday caadada iyo dhaqan xumadan hadda la leeyahay naag baa saddexna how xataa what even if it happened hadday dhacdo oo mucjisadaas waddankeena ay ka dhex dhacdo ma in banaanka lasoo dhigaaba soo in la qariyo maaha soo in miidiyaha si asturan loogu soo gudbiyo maaha ya si asturan oo meekhaansan oo lasoo dabagalay oo lagu fuliyey xukunkii ay islaamnimada kulahayd oo la tuso dadka sidaan dad danbe ugu dhiiran laakiin waa naag saddex naagood qabtay war waxaa la yiri ninbaa wuxuu yiri war salaadu xagga iska qaban laada war hadalkiinu xagga iska qaban laaya ya waxaas tuutu hadda soo gashtay shaad buu soo gashtay wuxuu leeyahay maxaa la dhahaa uniform buu soo gashtay leeyahay waxaan u taaganahay wadan maaragtay meel wade maxaa la dhahaa police. What kind of police are you? Yeah? What kind of police are you? What kind of lawmaker are you? maxaa tahay sharci yaqaankee tahay sharcigee that's not sharci islaamaha that's not maxaa la dhahaa sharci gaal that's not sharci oo Buddhiste that's not sharci oo helu kitaab that's not sharci oo Christianity that's not sharci Islam sharci shiico sharci adduunka sidaad wax u soo bandhigteen dhigayay ya adduunyada xeer iyo xaquuq baa lagu kala nool yahay markaas mid kastaaba kitaabkiisa la maragsaday oo gaaladu xataa ay kitaabkii islaamka la maragsadeen markay xataa xaquuq gaaladu ay human rightska ay u doodayaan waad arkaysaa waxa sidahaysa waxaan maraa kitaabkii iyo xadiistii bay ugu noqonayaan cabal baad sidahaysaa ya lianna inaan isagu un kala baxayahay bay og yihiin ya laakiin raggii Soomaalida xageebaad kuwii uniformka wadwatayo uniformka waxay tahay ma garanayee xagee diinta xagaad kala timaadeen who gave you the training yaa idin soo train gareeyay yaa idin soo tababaray yaa idin yirsaan oo kale wax soo baara wax soo bandhiga ya waad fashilantihiin aakhiriya adduunba waxaan idin leeyahay Allah idin soo hanuuniyo hooyana sidaa loo dhibo ya hooyo Soomaaliyeed iyo gabadh Soomaaliyeedna sidaa loo dhibo ya والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته برتادي قال سعتان وحمدة ناتشرالز